Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta meel waliba dunida aad ka joogtaan. Magacaygu waa Maxamuud, YouTube channelkaygana waa Engineer Maxamuud Xasan. Insha Allah waxaan bilaabi doonaa tutorial taxane ah kuna saabsan application-ka loo yaqaan Pixel Lab. Application-kani waxaad ku dhex isticmaali kartaa taleefankaaga gacanta. Application-kani waxaa loo adeegsadaa graphic design ama nashqadeynta sawirada. Insha Allah application-kani waxaad u adeegsan kartaa shaqooyinkii aad u adeegsan jirtay. Application-ka loo yaqaan Photoshop-ka. Application-kani haddii aad u baahan tahay waxaad kala soo degi kartaa Play Store-ka ayaad kala soo degi kartaa. Application-kani Play Store-ka ayaad kala soo degi karaysaa. Halka ayaad waxaad ku qoraysaa ama aad gelinaysaa Pixel Lab ayaad ku qoraysaa Pixel Lab text on picture pro. Halka ayaad kala soo degi kartaa. Waa ka loogadiisa qaabka ay markaa u muuqataa. Aniga already mar hore ayaan install gareeyay. Kaliya open ayaan ku sameynayaa, waa soo furaya application-ka. Waa kan halkan waxaa ka muuqata text ayaa ka muuqata sida aad u jeedaan daawadayaal. Application-kani markii textii qaybta ku soo baxdo, haddii aad text select gareyso waxaad halkan ka arki kartaa qaybtan sare sida delete oo kale inaad wax tirto ama inaad qoraal soo geliso ayaad ka arki karaysaa. Haddii aan unselect aan dhaho qaybtaas sare waxaad ka waynaysaa sida aad u jeedaan delete iyo halkii markaa textiga laga soo gelinayo. Waa ka halka waa select gareeyay waxaa markaa ku muuqda text ayaa ku muuqda oo halkaas sarna waxaa ka soo muuqanaya calaamada loo yaqaan delete iyo qalinka meesha markaa qoraalka laga soo gelin lahaa. Haddii aan doorto tusaale qaybtan hoose, haddii aan doorto waa bartaa. Haddii aan doorto waxaan kaga soo dari karaa waxa loo yaqaano toolisyo fara badan ayaa halkan ka muuqda. Halkan waxaan kaga soo dari karaa shapes-ka ayaan kaga soo dari karaa. Waa ka halka ayaan dooranayaa. Ishaas ayaa sii furayaa. Kadibna midkaas sare ayaan dooranayaa tusaale. Waa kaasa kadibna waxaan leeyahay halka tigtaas ayaan ku dhufanayaa. Waa ka daawada sidaad u jeedaan halka hadda waxaan ku soo daray shapes. Haddii aan select gareeyo waad arkaysaa halkaana toolisyo badan ayaa ka soo muuqanaya. Haddii aan unselect dhahana waa kaas halka wax dhaqaaqaya ma jiraan. Haddii aan select gareeyo waa ka halka waxaa ka heli karaa inaan background-iga ama inaan bedelo color-ka oo kaliya inaan ka bedelo ayaan adeegsan karaa. Haddii aan xirana waa kaasa oo sidiisa oo kaliya ayuu noqonayaa. Waa ka halka waxaad u jeedaan haddii aad select gareyso insha Allah inta aan ku jirno tutorial-ka cashirkani waxaan soo bandhigi doonaa waxyaabo badan ku soo jiito. Insha Allah kan haddaan iska delete gareeyo. Halkan waxaan dooranayaa halka hadda shapes ku qoranta ayaan dooranayaa. Shapes ayaan dooranayaa. Kadibna waxaan soo furayaa ishaas yar ayaan soo furayaa. Kadib waxaan dooranayaa circle-kaas ayaan dooranayaa. Halka kadibna waxaan leeyahay halka ayaan tigta saarayaa oo okay ayaan leeyahay. Waa kaasa sida halkan waa koornayaasha waxaad sameyn kartaa inaad soo jiido. Halka waxaad u adeegsan kartaa in dhanka kale aad u jiido. Kan inaad hoos u soo jiido, kan in markaa aad wareejiso ayaad u adeegsan kartaa. Waxaan rabaa hadda midkan tusaale oo kale loogada Apple inaan sameeyo. Ka ayaan soo yara dhoobayaa oo sida ukunta oo kale ayaan ka dhigayaa. Waa kaas sidaad u jeedaan. Kadib waxaan dooranayaa mid isaga la mid ayaan rabaa inaan doorto. Halka waa copy, halka ayaan ka copy gareyn doonaa. Copy ayaan leeyahay. Kadibna shape-yada ayaan isku soo dhaweynayaa. Halkaas sida markaan iskugu soo dhaweeyo. Waa ka waa isku soo dhaweynayaa. Sida markaan iskugu soo dhaweeyo oo isku yara aadinayaa. Sida markaan iskugu aadiyo kadibna sida ayaan leeyahay. Kadib waxaan dooran doonaa qaybtaas sare ayaan dooran doonaa si aan iskugu merge gareeyo ama inaan ka dhigo markaasi labada shape inaan hal shape ka dhigo. Waxaan dooran doonaa halkaas halka ayaan dooranayaa. Kadibna box-kaas ayaan tigta saarayaa klik. Kadib waxaan soo laabanayaa one shape ayaan rabaa inaan ka dhigo hal kaliya inaan ka soo saaro. Halka ayaan dooranayaa kadibna okay ayaan leeyahay.
okay markaan dhaho waxaan halka haddii aan rabo inaan ka laabto markaasi toolbarkan halka ayaan kaga laaban karaa, tigta halka ayaan saarayaa oo halka ayaan leeyahay. waa kaas sidaad ujeediin waxay noqdeen oo hal shape oo kaliya ayay noqdeen. hadda waxaan u baahanahay inaan sameeyo loogada Apple waxa loo yaqaano. haddana waxaan rabaa inaan tago qaybta shapeska ayaan dooranayaa. isha yar haddana ayaan furayaa, kadib waxaan dooran doonaa salkarka ayaa shapeska ka ayaan dooran doonaa. markaan doorto waan kusoo darsanayaa oo tigtaas ayaan saarayaa, kadib kan inta ayaan u yara sikinayaa. waxaan dooran doonaa midka xiga, kadibna sidaa ayaan soo yara jiidayaa. isla isaga ayaan waxaan ku sameynayaa haddana copy. markaan copy gareeyo oo haddana waan kala jeedinayaa oo sidaa ayaan u kala jeedinayaa. si aan u fahmo waxaan sameyn karaa kalarka ayaan ka bedeli karaa, kalarka ayaan ka bedelayaa. kan kalena kalarka ka bedel. waa kaas oo kalarkoodii waa bedelay. kan waa kaas sidaa ayaan markaa ayaan u yara wareejinayaa, saa u yaro yaree. markaan yareeyo kadibna halkaa ayaan jiidayaa sidaad u jeedaan. kan saa u wareeji, kadibna sidaa u yaree, kadibna kan xiga soo qaad. isagana wuu yara wareegsan yahay, laakiin waxaan sameynayaa isagana waa soo dhuubaya, waa soo yareynayaa, kadibna waan isku soo dhejinayaa sidaad u jeedaan. sidaa markaan isugu dhejiyo xoogaa yar ayaan ka yara sikinayaa, kadibna waxaan isku sameynayaa isku merge gareynayaa. waxaan dooranayaa halka ayaan tagayaa haddana, kadib waxaan dooran doonaa halkaas yareysta ayaan doonayaa, waan tig gareynayaa, merge ayaan leeyahay, kadibna okay ayaan leeyahay. sidaad u jeedaan waxay noqdeen markaa kuwo isku mid ah oo hadda waxaa kasoo saaray hal shape oo kaliya. kadibna waxaan ka bedeli doonaa midabka oo cadaanka ayaan usoo celi doonaa. midabka cadaanka ayaan ka dhigayaa. kadib waxaan soo qaadayaa midka ayaan soo qaadayaa xoogaa sidaa ayaan ka dhigayaa isagana oo halka ayaan keenayaa. kadib waxaan qaadayaa shape-ka xiga oo sidaa ayaan u yara dhuubayaa. intana waa ka yareynayaa. markaan sidaa u yareeyo xoogaa waan sii yareynayaa. kadibna waxaan qabanayaa halkaa koornaha ayaan qabanayaa oo sidaa ayaan u wareejinayaa. sidaa ayaan u wareejinayaa. kadibna waan soo yareynayaa. sidaa ayaan leeyahay. waan wareejinayaa. sidaa ayaa loo wareejinayaa. kadib soo yaree. sidaa markaad u yareyso kadib qaybta waa kaas sidaad u jeedaan. halkaas sidaa markaan ka dhigo loogada Apple-ka inta badan waxay ka go-an tahay dhinac ayay ka yara go-san tahay. si aan u sameeyo waxaan dooranayaa shape ayaan ku laabanayaa, isha yariista ayaan soo furayaa. markaan soo furo waxaan dooranayaa circle-ka ayaan dooranayaa, kadibna halka ayaan ka leeyahay tigtaas ayaan saarayaa. okay si aan u kala garto ay isugu qasmin waxaan dooranayaa kalarka ayaan bedelayaa, oo tusaale kale waxaan dooranayaa midabka madowga ayaan dooranayaa. halka koornaha ayaan qabanayaa, waan sii yareynayaa. waan yareynayaa sidaad u jeedaan ilaa iyo halahaas oo kale ayaan u baahanahay markaa inaan ka jaro. si aan u jaro waxaan isku tiggareynayaa, markaan waan isku merge gareynayaa. qaybtaas ayaan tagayaa. kadib waxaan dooran doonaa halkan ayaan dooranayaa. kadib waxaan tiggareynayaa labada sare, saddexda sare dhammaan waan isku wada tiggareynayaa. kadib waxaan imaanayaa halkaas oo shape-kaas ayaan imaanayaa. okay ayaan leeyahay. waa ka halkaa ayaan saxda sii saarayaa qaybta hoose. halkaas
oo u jeedaan hal shape ay noqdeen. Si aan kaga laabto midkan kale halka ayaan tigireynayaa oo waa ka hadda waxay noqdeen hal shape ay noqdeen. Waxaan u baahanahay markaa inaan sameeyo ama aan isku jaro midabka si qaybtii go'saneed loo arko. Waxaan tagayaa halkan hadda way dooran tahay, kadib waxaan raadinayaa oo kaliya erase color waa kan. Halka ayaad markaa ka heli kartaa erase color oo halka ayaan ku dhufanayaa. Sida aad u jeediin hadda waxaa jarmay midabka cadaanka ah. Inta badan midabka cadaanka ayuu ku sameeyaa. Haddii uu sidaas u jarmo waxaa sameynaysaa qalinka ayaa dooranaysaa. Qalinka ayaan dooranayaa, kadibna calaamadda halka ayaan waxaan saarayaa barta madowga ayaan saarayaa, kadibna waan ku tigireynayaa oo kelig ayaan leeyahay. Halkaas sida u jeediin markaa waxaa kasoo muuqatay loogadii caankeed loo yaqaanay Apple. Insha Allah application-kani waxaad ku sameysan kartaa loogooyin badan ama aad u qurux badan ee kusoo jeedo. Maanta halkaa ha inoo joogo cashirkan.